بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين. برنامج كني هلا رمضان بقينو سعودي وحلقة كل الدون أينو كسوة قادناي أي كمد أهايين حلقة هي كشيكيني فكر كهيرك كل الدون فكر كبشري كإنسان كأصومري سيدو إسقى صوت اللابي قرني يوم حنكو إلى هداي زمان بقى أو إسلام مركزنا وأسمي تدور أما هرمر وأسمي سيدو كل حنسوا أرجني waxa uu yahay hindisaha iyo hindisaha aqliyeedku waxa uu yahay sidan maankeena u godli karno sidan maankeena aan uga faa'iideysan karno isla markaasina u abuuri karno afkaar cusub oo waxtar inoo leh qaabkan suuraysiga u sameyn karno iyo guud ahaanba faa'iidada ay leedahay in maanka la godlo isla markaasina qofku uu wuxuu alifo oo maxaan ku dhahay nafsiyada iyo awoodda alifaadaba oo maxaan ku idhaahdaa yeesho iyo muhiimadda ay leedahay guud ahaan haddii aynu u gudubno qaybta saddexaad haddaba waxaan isla garanay muxuu yahay ama maxay tahay dhiirigelin iyo sidoo kale dhiirigelinta shaqsi maxay tahay ayaan isla garanay waxaa jirta saddex rukun ama saddex rukun ba aan idhaahno ama saddex dhardhaar oo ay ku fadhido ama ay ku taagan tahay waxa loo yaqaan dhiirigelin kan ugu horeeya ama fikir rukunka ugu horeeya waxa lagu magacaabaa awoodda laf ahaanteeda in ay tahay qudradda iyo awoodda uu qofku u leeyahay in uu wax sameeyo in uu wax qaban karo awoodda marka la leeyahay qof kasta oo loo dhiibo ama loo igmado shaqo uu ehel u yahay si wanaagsan buu u qabtaa marka la dhiirigeliyana awoodiisu way laba jibaarantaa marka halka aynu sidaa u qeexno waxaad arkaysaa qof haddii loo dhiibo ama xataa haddii uu isagu uu tiisa ay noqoto oo uu barto qofka kulliyad uuna ku raaxaysan ama shaqafkiisa ahayn oo baashankiisa aan ahayn oo xiise gelin si wanaagsan ugama soo ifo kulliyadaas oo kale sidaas in la eeg qof haddii loo dhiibo shaqo aan shaqadiisa ahayn ama wixiis uu soo bartay ahayn ama uuna xirfadeeda lahayn si kasta oo uu dadaalo halkii la rabay ma tago marka qofka awoodiisa iyo waxaa la isku beegayaa waxa uu ehel u yahay kadibna waxaa imaanaysa dhiirigelintii marka waxay noqonaysaa qofka inuu يعني أقصى قمة ماشي وجوس الرئيسي وأودي سهيد إنه وحي كجصابها أما شغلي كجصابها لكن كلنا إن أود وحي نقول ساعة تن أن حد كلهين يقف البو إلى هاي سي تدخل كالدودوين قف بقى أودي استعماله قفنا ما استعماله قف بقى يسوي الحديث اللي حد ولما يستيران هاي أودي حتى هذا استعمال إنه يركع استعماله قف إسرائيل نقول ما يستغنين أما قيبة بدن أي مقام تهاي لقيا با دتك عادي جاء البجبار ما يصدق جبار أود إن أنت استعمالين كبدن إنه استعماله المعجزات كي أود ولا هاي حدي أن توصل وصل قاعد إنه بحلو يقاني معجزة دي قرن جي سجالتنا لما قبل جودي قرن جي سجالتنا إلى قبل برتبيه قرن جي لبعتنا تسوق قاعدي وقبل لو ما قعابه هيلن كيلر هلا سين وقنهاي صدح عقبات بوي هيستين كو إندول بيه وحب ميسن أركتشرين لابو وحب ميسن مقلتشرين صدح وحب ميسن هدي كرتشرين هدي بقى أي هذا شون هذا الكذب ها هذا الأندتكو أين فهمي كرين وحاجرتا أو إنه نوع بين بدنا أرجنا نوعين أرجنا وحوين إنك قفكو إنه بكم يسوم اسكو درسداي oo uu yahay maxaan ku dhahdaay in qof dhigaha la waxa maqli karin aan hadli karin marka waxa jira dhagolmada qayb qofku uu wax maqli karo qofku uu hadli karo laakiin uu wax maqli karin oo laga yaabo marka ay qofka hortiisa uu hadlo in uu bushmihiisa qofku wuxuu leeyahay uu akhriyo dan uu u jawaabi karo laakiin hadduu kaasi jisto uu waxba maqlaynin qofkaas oo kale cilada ku yimaada qof ku dhasha oo isagu labadaba mucaaqka ah noo jira oo labadaba maxaan ku idhaahdaa aan awoodin marka gabadhan waxay ahayd inayna labadaba awoodin waliba kelmadaha mar dambe oo aad loo tababaray kelmadaha hadalka ka soo baxa wuxuu ahaa mid aad u liita fahamkiisa oo
waxaa fahmi jirtay oo keliya macluumadeedii ayaa fahmi jirtay. sidoo kale waxa maysan maqli jirin. haddana sheekadeeda in badan wayn haynaa. waxay ahayd qof awood haddii la yidhaahdo qof wuu ka faa'iidaystay, qof bini aadan ah, qofkii ugu saameynta badnaa ee ka faa'iidaysta, ayadoo indhala oo dhegala, waxna maqlaynin, hadlina karaynin, waxna arki karayn, bay waxay awood u yeelatay in ay noqoto qof nolosheeda horumar ka gaadha, waxbarashadii horumar ka gaadha, oo darajooyin sare ka qaadata. waxay noqotay muxaadarad kasoo jeedisa lectureska jaamacadaha oo xaadirta jaamacadaha. waxay ahayd oo macalinimo ay ku dhigaysay maadooyinka xisaabta, fiisigiska, maadooyinkan cilmiga xayawaanka iyo dhirta, yacni juqraafiga oo kale. sidaas la eg dhowr luuqadood bay ku hadlaysay oo ilaa 5 ah. waxay qortay buugaag badan oo lagu tiriyo buugaagta ugu saameynta badnaa ama qofka ugu saameynta badnaa nolosha bini aadanka soo maray uu qoro. waxay kaleeto ay ahayd activist, dadka dhiban u ololeeya, gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka qaba. waxay sameyn jirtay waqtigeed ku qaadan jirtay safarada ugu badan oo ay ku soo ururinayso dhaqaale ay dadka wax ugu qabato. waxaa cajiib ahaa luqadda sign language-ka in gacanta laga bari jiray oo gacanta laga siin jiray, khaasatan macluumadeeda ay gacanta ka sii jirtay. qiyaas ahaan halkii daqiiqada 100 kelmadood oo sign language ah in ay gacanta ka siin jirtay ayaa la sheegaa. sidoo kale waxaa la sheegaa amaba siday ahayd in ay ku garan jirtay qofka saaxiibkeed ah ama dadka asxaabteed ah markay u yimaadaan ayadoon cid kaleetaba aadin, in ay dibnahooda ay gamcaha saari jirtay. marka ay dibnahooda gamcaha saarto ama faraheeda ay saarto, qofka codka kasoo baxaya, sawdka kasoo baxaya, toonkiisa qofka ayay garan jirtay. yacni qof walba inaga mida codkiisu qaab buu u dhacaa. marka uu qofkaasi bilaabo inuu hadlo, laba midba way garan jirtay. mar waxaa ka mid ahaa inay qofka bushmihiisa ay faraheeda ku aqrin jirtay kelmadaha kasoo baxaya, waa caadi maxaan ku idhaahdaa ay u garan jirtay. marna codka qofka kasoo baxaya, luuqadda uu qofku leeyahay ayay waxay garan jirtay inuu hebel yahay ama heblo yahay qofkaas. subxaan allah, yacni qudrad ama awood ilaahay uu qof geliyay yaa isticmaalay marka la dhaho waxay ka mid tahay example-lada ugu wanaagsan ama tusaalayaasha ugu wanaagsan oo qof bini aadan ah uu tusaale u qaadan karo. intaas oo dhan hadday samaysay Helen Keller oo 3 caqabadood ay haysteen, yacni halka waxaa ka garanaysaa awoodda qofka abadan inayna xadidnayn marka awoodda bashariga ah lagu guda jiro. waxaa jira wax la yidhaahdo ma jiro wax mustaxiil ah. dabcan wax mustaxiil wuu jiraa. haddii ana oo qof ah aan dhaho maanta sida shimbirahan u duulaya, intaan buur dhakadeed ku istaago aan sida shimbiraha u duulo, taas macquul ma aha oo ma duuli karo. laakiin ka bini aadam waxaa awoodaa in aan samaysto wax aan ku duulo. actually waan samaysan in wax aan ku duulno in aan samaysano, laakiin sida shimbirta ma duuli kartid. taasoo kaleeto waa wax mustaxiil ah inuu qofka bini aadanka ee basharka uu sameeyo. laakiin awooddaada bashariga in aad isticmaashid ayaa inaba xadidnayn. laakiin inta ugu yar ayaynu ka isticmaalnaa. rukunka labaad ama dhaqdhaqaaqa labaad ee motivationku uu ku taagan yahay ayaa wuxuu yahay isaguna waxaa la yidhaahdo doonista. iyo qofku isagu wuxuu uu rabo in uu sameeyo, rabitaanka qofka. rabitaankaaga iyo doonistaadaba haddii adduunka dadka jooga ay isugu yimaadaan oo ay isdhahaan ku beera ama geliya, laguma gelin karo, laguma samayn karno. that's why baan u aragnaa dhalinyar badan ama ubad badan oo waalid wanaagsan haysta oo maxaan ku idhaahdaa investment badan lagu sameeyo naftooda oo wax badan loo huro oo hadday jaamacad hadday iskuultay la hordhigo oo maxaan ku idhaahdaa
hadday maxaan kula ganacsi rabaan ganacsi loo furo oo wax kastoo ay doonayaan nolosha loo sameeyo laakiin haddana horumar lahayn waayo doonistii ayaga gudahooda ku jirtay iyo rabitaanka ayaga gudahooda ku jiray baa maqan adduunka dadka jooga hadday isu yimaadaanaba waxa kaliya ayna ku gelin karin marka dhanka alla laga yimaado allana ikhtiyaar buu ku siiya aad wadada aad rabtid samaan iyo xumaan aad ku qaadaysid oo wuu kuu daayay isaguna taas waxaan aad u aragnaa kaba soo qaad waxaa jira laba gabdhood oo walaalo ah labada gabdhood oo walaalo ah waxaa laga yaabaa inay laba sano isku xiga ay dhasheen mid ka mid ah way dadaalaysaa waxbay baranaysaa iskuulka aadaysaa jaamacadday aadaysaa rafaad badan bay maraysaa soo jeed badan bay samaynaysaa waxyaalo badan baa madaxeeda ka guuxaya tii la dhalatay ee walaasheed ahaydna marka ay jarmaadaysana way jiiftaa marka ay soo dhalandhoosho duurka ay timaadana way jiiftaa oo guriga halkay kaga tagtay jiiftaa marka ay la hadasho ay ku tiraahdo walaal maxaa kugu dhacay iskuulka kaali aad ama waxbarasho aad ama orada wax dhigo simbali walaasha jiifta waxay ku jawaabtaa abaayo maxaa ku gubaya adaanba anigu kaa yaabanahay maad iska fadhiisatid meel seebaan u fadhiisan karaa tii kala leeda adduunya ina sugaysa wax badan bayna sugaya caqabada ina sugaya waxa wax inoo barayaan waalidkeen ay u dhididayaan waa inaan inaga wax noqono inaan iyaga wax tarno inaan nafaheena wax tarno sabay naftaada kuu sayso inaad jiifsatid abaayada kale ee iska jiifto waxay dhahaysaa kaalay adiga inaad gabar tahay isma ogid haye just sideeda kareen marso maruuxadda shido ama mukeefka shido hees iska dhegeyso dad iska seexo hooyada aabahaba beriis kuu tabcay beriis baa waaysaa gurigan wuu buuxaa wax kasta u baahana waan haysanaa that's enough okay tii kalaale aabaheni hooyadan wax walba inoo sameeyey beri hadday waayeeloobaan inaga inoo baahan yihiin ama way dhiman karaan xilligaa maxaan sameynaa marka maxaad sameyn lahayd adiga markasta lama rabo inaad fakartid bay tii kala leeda markasta lama rabo inaad fakartid waxaad gabar baa tahay waxaad guursan doontaa nin ku kafaalo qaado oo wax kasta oo rabo aad rabtid kuu sameeya ayaad guursan doontaa isaga ayaa laga rabaa in uu yani wax kasta u baahan tahay kuu sameeyo waa run ninka aan guursan doono ilaahay baa ka weelay inuu wax walba u baahanahay ii sameeyo laakiin ma ku tashatay ninka aan guursan doono ana caruur badan le in aan kala tagno in uu dhinto inuu baralaas noqdo shil galo waqtiga ugu yar ee walaalahay ama ciddayda ama ciddiisu ay wax i tari karaan ama diyaar inay u yihiin inay wax taraan waa 2 bil 3 bil waxaan sanad gaarin dheereeba waxaan sanad gaarin because qof kasta tiisa cuslaysay marka maxaa sameyn doonaa dhimale mid kale iska guursan doontaa oo caruurtaada adiga kugu qaata xaguu taagan yahay kaas dhimale waa la helayaa okay gabadha saasay leedahay noloshana waxay damiirkeeda ama raqbada ku jirta rabitaanka ku jira wuxuu siiyey inayna muhiim ahayn yani rabitaanka ku jira ayaanba ahayn rabitaan isdhibaya malaha rabitaankii ahaa u sheegaya mas-uuliyadeeda markaynu sharxaynay dhiirigelinta shaqsiyadeed waxaan soo sheegnay dhiirigelinta gudaha in ay ka timaado afkaarta iyo aragtiyada shaqsiyadeed ee cuskanaya dareenka mas-uuliyadeed ee uu qofku leeyahay marka dareenkeeda mas-uuliyadda iyo afkaarteeda shaqsiga ahaa waxay u sheegeen inayna isdhibin soo doonisteeda iyo rabitaankeeda wuxuu noqday inayna isdhibin oo nolosha dad u diyaarsan oo wax walba u sameynaya aysan jirin ay jiraan caqabadna aysan jirin hadday mid timaadana ta kale ay ka baxayso she doesn't care anything marka labada gabdhood ee walaalaha ah ayaa waxay ku kala duwan yihiin rabitaanka mid dhiirigelin gudaha ah baa jirta oo la hadlaysa oo leh dadaal midna maba dareemaysaba wax walba waxay u aragtaa muhiim inayna ahayn in la sameeyo way iska jiiftaa waqtigeedna intaasaa laga yaabaa in ay ku qaadato beri ka maalin gabadha marka ay sidaa leedahay waxay og tahay in ay caqabadeeda ku noqon doonto oo ay mas-uuliyadeeda
ay u dheeraan doonto walaasheedan jiifta mas-uuliyadeedu waayo qof aan waxba tabcanin isagu aan hore u dheedin isagu aan hore wax meelaysanin isagu aan hore isugu tashan dabcan wuxuu ku tashanayaa qayrkii qofka ugu horeeya ama dadka ugu horeeya oo ku tashanayaan waxay noqonayaan ehelkiisa oo familkiisa iyo walaalihiisa ay ugu horeeyaan taa markaan ka nimaadno waxaa jirta sheeko aad qiso u qurux badan ahayd laba wiil baa walaalo ahaa way da'yaraayeen waxay lahaayeen hooyo wanaagsan iyo aabbo aad u kulul aabahood nolosha ciriiri ku ahayd haddana waxaa u dheerayd in uu daraagiska isticmaali jiray waxaa u dheerayd in uu cabi jiray khamriga labada caruure uu leeyahay iyo hooyadoodba aad buu u garaaci jiray markuu guriga yimaado isagoo sakradaysan isagoo aan sakradaysnayn wuu garaaci jiray wuu dhibi jiray nololtii u xumeyd buu marsiin jiray qoyskiisaas maalintii ugu dambeysay ee qoyskaasi kala tegi doona natiijo ka dhalatay waxay noqon doontaa garaacii iyo nabaradii uu geysanayay aabuhu hooyada darteed inay hooyadii u dhimato oo u nafbaxdo halkaas markay sheekadu maraysay labadii ilmood ama labadii wiil hooyada iyo aabahan hooyadiina ay dhimatay aabahana uu saayahay ay dhaleen waxay sameeyeen in ay kala cararaan oo mid walba meeshii kasoo horbaxda uu aado dabcan laba jid bay kala qaadeen wayna kala lumeen labadii wiil ee yaryaraa muddo kadib waxaa dhacday in ay ishelaan labadii wiil ee yaryaraa muddo aduu qiyaas ahaan 20 sano lagu qiyaaso waa sheeko kamid ah sheekooyinka tusaalaha loo soo qaato in ay alifaad tahay bayna u badan tahay laakiin waa sheeko waaqica sheekooyinka kamid ah sheekooyinka waaqica aad uga dhex dhaca labadii wiil way kala lumeen 20 sano kadib bayna kulmeen xagee bay ku kulmeen waxay ku kulmeen xabsigii aabahood ku jiri jiray xabsi la mid ah ay ku kulmeen xabsiga ay ku kulmeen waxaa ku jira mid ayaga kamid ah oo xanuunsan isla markaasina la doonay in la daweeyo kan kalena wuxuu ahaa dhakhtar waxaa dhacday in markii ay isu yimaadeen uu faylkiisii baaray dhakhtarkii magaciisii iyo magacii maxaan ku idhaahdaay hooyada iyo qoyska iyo wixiiba uu ka helay iyo taariikh nololeedkiisii oo meesha ku qoran intii uu xabsiga ku jiray iyo dambiyadii loo soo xidhayay iyo yacni sawaabiqdiisii oo dhan dhakhtarkii marka wuxuu gartay qofkan inuu yahay walaalkiisii ay kala lumeen subxaan allah walaalkiisii ay kala lumeen inuu yahay buu xaqiiqsaday wuu yimi wuxuu ku yiri ii waran wuu wareystay wuxuu maxay tahay sababta kuu geysatay arrintan inaad samaysid wuxuu uga dhacay sheekadii ay soo mareen yaraantoodii waxaan ahaa wiil yar oo ilmo ah anigay walaalkay nin aad u xun baana dhalay daraagis ah maalin walba anigay hooyaday iyo walaalkayna garaaci jiray ugu dambeyn hooyaday dilkiisiiba u dhimatay anigay walaalkayna waan cararnay waxaan galnay magaaladan joognay baan ilba dhinac ka galay waan kala lunnay garan maayo isaga meel uu jiro waxaa laga yaabaa xabsiyada ka mid ah inuu isaguna ku jiro sideeda oo kale wuxuu sheegayaa walaalkiis si kale xabsiyada ka mid ah inuu ku jiro ayaa suurtagal ah ama uu iska dhintay sidoo aabahay xabsiga ugu dhinto kale inuu xabsi ku dhintaa laga yaabaa aniguna waa ikan waxba lama nooli wuu ku qoslay marka doctorka wuxuu yiri idageyso ya walaalkaaga aad sheegaysid aad u malaynaysid inuu dhintay ama xabsiyada ka mid ah uu ku jiro wuxuu yiri waa aniga mana dhiman waana noolahay waana ku hortaagana maanta dhakhtar baan ah waanigan ku daweynay wuu u qaadan waayay marka walaalkii xabsiga ku jiray wuxuu yiri hawdkams sabab ku dhici kartaa wuxuu way dhici kartaa wuxuu yiri ii sheeg maxay tahay sirta ku jirta inaan aniguna noloshii aabaheen nolol la mid ah aan ku noolaado iyo mid ka sii dhiidata adiga walaalka oo isku marxalad iyo isku xaalad aynu soo marnay aynu ka wada baxnay hal guri oo aynu hal maalin kala lunnay in ay noloshaada sidaa noqoto waliba anu magacaaga in badan baa maqlaya dhakhtar kamid ah dhakhaatiirta ugu caansan beledkeena inaad tahay baan ogahay oo waliba ugu maamuuska badan
يعني سيبات كنا نكون كرتا walaalkay أنا weligay kumaana fakrin inaad noqonaysid walaalkay ii sheeg sirta maxaa samaysay yaa ku helay wuxuu cidna imaysan helin isku tashada wax kasta oo aan qaban karayay aan bayaraade ayaan qabtay waxaan dhinac ka raacay waxbarashadii dawladda ay bixinaysay iyo iskuulada dawladdu ay lahayd gelin waxbaan baranayay gelinna waan shaqaysanayay kamcahayga walow ay yaryaraayeen haddana waan shaqaysanayay sidii baan ku weynaaday iskuulsnimadii baan ku weynaaday waxbarashadii baan waday waxbarashada waxaa dhici jirtay maalin walba in anigu wanka galo oo aan noqdo ardayga ugu aflaxsan say saas u ahayd waxaa dhacday in maalintii dambe aan iskuulkii dhammayno dan aan helo mixnad dalka dibadiisa ah oo ii suurta gashay waan aaday waxbarasho sanaa soo qaatay ilaa heerkii ugu saysa waxbarashadii kasoo gaadhay marka halkaa marayay dib baan ugu soo laabtay dalka si aan dalkaygii aan isaga cashuurtiisa wax ugu bartay aan wax ugu qabto isma aanan lahayn ehelkaagi baa cidi ka nooshay aad helaysaa aabaha ama walaalka wuxuu okay waa ii sheegtay inaad waxaasoo dhan samaysay laakiin aniga adiga waa wada dhalanay weli ma fahmin sirta ina kala bedeshay wuxuu just sirtu waxay ahayd rabitaankaaga iyo rabitaankayga kala duwanaa adiga rabitaankaaga wuxuu noqday in aad waxba qaban karin baad isu sheegtay waad iska aamin baxday deetana waxaad bilowday in aad burcad noqotid in aad daraagiska sidii aabeen isticmaashid walow aad ogeyd daraagisku dhibaatada weynoo keenay qoys ahaan in maalin walba aad maxaan ku idhaahdaa lagu soo xidho oo aad dembiye geysatid ama ha ahaadaan maxaan ku idhaahdaa dhagar ama ha ahaadaan tuugnimo in intaasoo jeer oo faylkaaga ku taalo lagu soo xidhay in aad sidaa nolosha uga dhacday in aad maanta sidaa u eg tahay in ayna rajo laga yaaba ayna banaanka kuu oolin iyo sumcad laakiin aniga rabitaankaygu kaawuu ka duwanaa jis rabitaankaygu wuxuu ahaa in aan sameeyo oo qaado waddo ka duwan wadadii inaga aabaheen soo qaaday in aan qoyskayga aniga uuna marin qoyskeenu halkii uu maray waxaan gartay oo rabitaankayga ahaa in aan dhidido aan wax barto aan dadaalo ayuu ahaa taas weeyaa marka sirta keentay aniga iyo adiga in aan kala duwanaano sirta keentay aniga adiga in aan kala duwanaano waa taas walaalka xabsiga ku xidhan dabcan wuu garawsaday war hooya laga bartaabay Soomaalida ku maahmaahdaa rabitaanka qofka hadba waa siduu go'aanka u qaato ayay ku xidhan tahay dardhaarka saddexaad marka aan u nimaadno waxaa weeyaan dadaalka iyo alaaba natiijada aan helnaa way isku xidhanta sidee يعني انت aad dadaashid uun baad heshaa habeenada aad soo jeedid dhididka aad dhidid tacabka aad samaysid challenge-yada aad la kulantid wax kasta oo aad samaysid oo dadaal ah iyo natiijada halka aad tagtid way isleedahay haddii aad aragtid qof kaa horeeya it's mean uu kaa dadaal badan yahay haddii aad aragtid mid kaa dambeeyana it's mean just uu kaa dadaal yar yahay dadaalka marka la qeexay waxaa lagu qeexaa in uu calaamad u yahay tamarta qof walba uu ku bedelo waqti uu geliyo iyo tamar uu geliyo xaqiijinta ahdaaftiisa marar badan oo laga hadlayo hadafka iyo dadku soo xaqiijiyaan ama tacliinta oo kale laga hadlayo iyo ardayda soo u kala horeeyaan waxaan maqli jirnay man dalaba al-ulaa sahara layaali yani qof kasta oo raba sareyn iyo kor habeenna badan soo jeedaan taas waxaa soo ognahay in ay xaqiiqo tahay marka in kasta oo aad bixiso dadaal waxay noqotaa natiijada in kasta oo aad hesho hadda tusaale waxaan ku jirnaa bil Ramadaan haddii aad samayso dhammaan acmaasha bisha Ramadaan laynaga rabo hadday tahay quraan akhris hadday tahay soomka niyad ah haddii ay tahay in aad sadaqa geysato haddii ay tahay
tasbiixda haddii ay tahay inaad carabkaaga iyo ishaada iyo gacantaada dhammaan aad dariska ummadda islaamka ka qabatid yacni wax kasta wanaaga oo lagu faray in aad samaysid haddii aad samaysid isla markaasna aad ka reebanaatid wax kasta oo dembi ah waxa aad rajaysaa maxay tahay ama aad niyeysataa in aad ku guulaysatid laylatul qadriga oo aad heshid laylatul qadriga ilaahayna uu kugu daro kuwa naartiisa ka xoreynay simple laakiin haddii ay cagsi tahay oo aadan intaa in la egba aadan samaynin oo laga yaaba adoo aan samayn inaad in dheeraada oo xumaano aad samaysid ma filanaysaa inuu ilaahay dadkaa kugu daro may bay u badanta dabcan may bay u badanta marka taas maxay micnaheedu tahay qadriga dadaal ee aynu bixino iyo qadriga natiijo aynu helno in ay isku jaango-an yihiin oo isla eg yihiin kasoo tag waxaynu soo gaarnay bu'dii iyo dulucdii barnaamijkeena ayaynu soo gaarnay ama xalqadeena awoodda dhiirigelinta ee nolosha insaanka ahayd dhowr qodob baynu isdul taagaynaa qodobka ugu horeeya waxaa weeyaan ee dhiirigelinta awoodaheeda ka mid ah ee nolosha insaanka ah ama saameynta ay ku reebta ah kow awoodda qofeed ee uu ku xaqiijiyo hadafyadiisa horta xaqiijinta hadaf maxaan ku qeexi karnaa xaqiijinta hadaf waxaan ku qeexi karnaa kaba soo qaad waxaa jira geed baa jira geedkaa waxaa kuu sulan qumbe ama qumbayaal qumbahaasi wuxuu ka dhigan yahay hadafkaaga qumbayaal hadduu yahayna hadafyo aad nolosha ka leedahay waxaa hubaala oo laysku raacay qofka bini aadanka in uunu noolaan karin hadaf la-aan meel unbuu u socdaa qofku muslim ahaan waa laynoo sheegay janna cardaha samaawaat wal ard baa laynoo sheegay ayadaan u soconnaa u shaqaysanaynaa waana hadafka ugu weyn ee qofka islaamka uu shaqaysto waa guusha ugu weyn oo qofka islaamka uu hanan karo ma jirto guushaas ka weyn mana jiro hadaf loo shaqaysto oo hadafka ka weyn wixii ka sokeeya oo adduunyada oo dhan waa very success waa natiijooyin yaryar oo iska fudud natiijooyinkaasina khayr male haddii aynan u maraynin guusha weyn oo socdaalka weyn aynu ugu jirno guusha weyn haddii aynan u maraynin oo aynan kasii dhiganaynin marinkii ayadana faa'iido male oo najaax ma noqoto guul ma noqoto marka qumbaha geedka sudan ama qumbayaasha geedka sudan marka aad shiishtid dabcan wixii aad malaynaysay ama aad ku ogeyd ee ku jiray ayaa kaaga soo daata kaba soo qaad in uu malab inoogu jiray marka aad shiishtid uu kala dhaco laba qalbac kala noqdo waad hoos fadhiisanaysaa miidii iyo malabkii baad nuugaysaa miidii iyo malabkii kasoo burqaday baad nuugaysaa taas micnaheedu waxaa weeyaan in uu malab kuugu jiray haddii uu lacag kuugu jirtay oo business aad abuurtay isla markaasna uu businesskii najaxay hadafkaagu wuxuu ahaa inaad noqotid ninka ugu maalqabeysan waddanka ama gobolka aad joogtid ama beledka aad joogtid qumbaha marka aad shiishtid ee uu kala dilaaca dabcan lacagta waa kasoo baxaysa daasmin inaa hadafkaagii aad gaadhay hadafka iyo gaadhista adiga iyo gaadhista hadafkaagan waxaa idin dhexeeya zaman wax la yidhahdaa idin dhexeeya zamanka qaabka aa u maalgashatid in la eg ayaadna ka helaysaa qumbaha gudihiisa geedaha qaarkood qumbaa sugan qaarkood labaa sugan qaarkood dhowr baa sugan qaarkood kuwa badan baa sugan qaarkood waxba ma sugna soo adiga haddii qumba uu kuu sugnayn daasmiin hadafkaaga waa qumbaha hadduuna kuu sugnayna waxba kuma sugna marka awoodaha dhiirigelintu ay leedahay in nolosha insaanka ay ka geysato waxaa ka mid ah number 1 hadafka xaqiijinta ahdaafta qodobka ah baan ka wadaa xaqiijinta ahdaafka qodobka labaad ayaa isaguna wuxuu yahay yagleelanka aragtida togan يعني سيدي يعني اسمها aragtida togan kaba soo qaad laba indhood bay dadku leeyihiin marka matalaad aan ka soo qaadano indhaha qaar waa indhaha shinnida indhaha qaarna waa indhaha duqsiga haddii indhahaagu ay yihiin indhaha shinnida waxaad arkaysaa wax wanaagsan yagleelitaankii aragtidaada togan waa mid wanaagsan oo wax wanaagsan arki karta waxa quruxda badan shinnida waxaa u muuqda soomaa ubax
adigana sidoo kale waxa quruxda badan baa kuu muuqanay, waxa wanaagsan ee dalka ka dhacaya, waxa wanaagsan ee dowladdu qabanayso, maxaan ku idhaahdaa wax wanaagsan ee shakhsiyaadku ay qabanayaan, waxa wanaagsan ee awlaadaadu ay qabanayso, waxa wanaagsan ee adigu ay qabanaysid, nimcooyinka ilaahay baa kuu muuqanaya. laakiin haddii aragtidaadu ay negative tahay, waxaas dhan kuma muuqanayaan, kaliya daldaloolada iyo inta xun iyo inta baada iyo inta maxaan ku idhahdaa hooseysa kuu muuqanaysa. qof kastoo agtaada soo istaaga inuu xun yahay kuu muuqanaysa, ficil kasta uu sameeyo inuu xun yahay u fasiranaysa, dowlad waxay ku dhaqaaqdo in wax ka dambeeyaan baad u fasiranaysa. يعني everything wax kasta oo xun waxa weyn adiga aragtidaada bay ku base garaysan yihiin. sidaa la agtijeed in ay yegleelanto oo ay dhismato aragti toosan waa awood ka mid ah awoodda dhiirigelinta nolosha insaanka ay u leedahay. qodobka saddexaad haddii aan dul tagno waxa weeyaan helitaanka awoodda isbedel, in aad tahay qof isbedeli kara. waxaa ka mid tahay awoodaha dhiirigelinta ee nolosha insaanka, in aad isbedeli karto. waxaa jira wax la yidhaahdo saddexda sii ama saddexda xeer ee siiyada. yacni waxa ugu horeeya challenge in aad la kulantid, change in aad samaysid oo aad isbedel keentid, dina janiska aad qaadatid oo fursadaha iyo janisada ay kusoo maraan. challenge waa waxa adduunkan ugu wanaagsan ee qofka tab ahaan, tamar ahaan, maskax ahaan, jiritaan ahaan, horumar ahaan intaba u dhisi kara. haddii aadan jeclayn caqabado inay ku wajahaan, that's mean change inuu kugu yimaado aad bay u yartahay, isbedel inaad siiso aad bay u yartahay. haddii isbedelkaaga uu yaryahayna jaanisyo badan oo waxtar leh inay hesho aaday u yarta. الله wuxuu leeyahay in Allah la yuqayyiru ma biqawmin hatta yuqayyiru ma bi anfusihim. يعني alla ma bedelo qawm illa ayagu ay isbedelaan oo nafahooda bedelaan ma ahan. يعني waxaan ognahay alla inuu ikhtiyaarka inaga in raaciyay, ikhtiyaarka in raaciyo waa maxay? xumaan iyo samaan wadada aan rabno inay inagu qaadno, janno iyo cadaab, wanaag iyo xumaan, dheef iyo dhib, يعني nabad iyo nabad la'aan. يعني wadada aynu qaadno natiijada ka dhalata uun baynu helnaa. marka haddii aadan marka ay caqabadaha aad la kulantid aadan istuduubin oo aadan maxaan ku is odhanin waxa ma samayn kartid, iska dabaa way ku dhaafaysaa iyo maxaan ku idhahdaa hadda dadka baxay xaggee aadaysaa, all this maskaxda hadday kusoo ururto waxay noqonaysaa inaad caqabadii aad u qayb ka noqotid ama aaba kasii hooseysidba oo meeshii booskii aad ka baxdid. laakiin haddaa u dhabar adeegtid oo challenging marka aad aragtid aad isku dayid inaad wax ka qabatid oo la rafatid oo aad la legdantid, waxaa imaanaysa heer aad jeclaato challenge in aad ku noolaato. haddii aad weydinna adigoo aad abuurato waa xaqiiq, waayo waxaad ogtahay oo dhadhamisay jaanisyada macaan ee ka dambeeya. daasmin baa qof walbo ilaahay adduunkan inuu wax ka noqdo uu diyaarinayo badankood uu challenge marsiiyaa ama caqabado iyo nolol adag uu marsiiyaa. nebi maxamed amba tusaale usoo qaadanay agoon, rajo, shirkooda waxba haysan, adhi raace. yacni intaas oo dhan waxaa loo soo diyaarinayay noloshii ka dambeysay ee nebinimo. adadayga iyo challenge-yadaas oo dhan hadduuna soo maraya caqabaadkaas oo dhan siduu u adkaayo afdal mursaliin uu ahaa inuusan noqdeen baa suurtagal ah. ya marka helitaanka awoodda isbedel ee ku dhidban saddexdaas xeer waa awoodda dhiirigelinta qofka insaanka ay u leedahay. 3 ayaan soo aragnay. 4 dhismaha ixtiraamka ee nafeed. dhowr maado markaan ka eegno aragtiyada shakhsiyadeed iyo ixtiraamkaaga nafeedba dhismay ka geysatay awoodda dhiirigelinta. haddii aadan dhiifoonayn oo qof dhiiran aadan ahayn oo dhiirigelin qaban haba u badnaata tan gudaha waxaa laga yaabaa inaadan ixtiraam nafeedna aadan yeelanin oo aadan deeba ka maxaan ku idhahdaa sariigin wax kasta oo naftaada lagu sameynayo aadan xaq u lahayn ama aadan u qalmin. waxaa laga yaabaa in aragtidaada shakhsiyadeed ayna ahayn mid kobacsan ama mid wanaagsan ama mid maxaan ku idhahdaa halbeegii la rabay taagan, aragtidaada shakhsiyadeed ay aada u hooseyso. dhowr maadoba inaadan aqbalin ayaa imaanaysa marka aad leedahay ixtiraam shakhsiyadeed
ama ixtiraam nafeed. In aadan aqbalin in lagu yeso, inaad hoorsato, inaad maxaa ku idhaahdaaye cid daba fadhiisato, dayaca inaadan aqbalayn. yacni wax kasta oo hooseyn ah ama quursi ah oo qof bini aadan ah kaaga imaan kara in aadan aqbalin, waxay ka imaanaysaa ixtiraamka nafeed iyo aragtida shakhsiyadeed ee adiga kugu jira, isla markaasina kuwa adag ah. awoodaha dhiirigelintu ay nafteena ay u leedahay ayay taasina ka mid tahay. qodobka aan kusoo gabagabeynayo awoodaha dhiirigelinta aynu ka helno ayaa wuxuu yahay maareynta horumarka shakhsiyadeed iyo caawinta dadka kale. horumarkeena shakhsiyadeed in aynu maareyno, in aynu xirfado cusub barano, in adduunka la jaan qaadno, inaynu challenge-ga la dabaalano saynu hore usoo aragnay, in aynu wax kasta oo in anfacaya aynu baran karno, inaynu mashaariic sameyn karno, inaynu sumcadeena ilaalin karno, in aynu meel kastoo aan inoo habbooneyn aynan istaagi karin. yacni in maxaan ku idhaahdaaye hadafka aynu rabno aynu kasoo dhalaalno, in aynu khayrkeen aynu ka dhex muuqan karno, inaynu dadka caawin karno, ehelkan ugu horeeyaan, deriska, islaamka, waxaas oo dhan yacni waa awood kamid ah awoodaha dhiirigelintu ay u leedahay nolosha insaanka ama nolosheena ama nolosha qofeed. waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenayna soo gaarnay oo ahaa xalqadii awoodda dhiirigelinta ee nolosha insaanka. wuu dheerayay videogeena xoogaa, laakiin waan soo gabagabeyneynaa. waxa dhiirigelintu waxay dhistaa caqliyada ifaya. it means haddii aan group ama leyd kaa dhex shidnayn oo caqligaaga leyd ama group ka dhex shidnayn, wax ay ka bedeli karto haba yaraatee ma jirto. dadka qaar miyaa caqliyada dansan yihiin? dabcan walaashii aynu soo aragnay ee iska jiiftay, walaashaad ku gubaabinaysay ehelkeenba wax walba inoo haya, maxaan ku idhaahdaaye iska seexo, iska cuno, iska cab, maxaa ku wareeriyey walaashii lahayd. dabcan caqligeeda leyd kamuusan baxayn, laakiin walaashii kale caqliga leyd baa kasii baxay. sidoo kale labadii sheeko ee kala duwanaa labada walaala ahaa, midna mujrimka noqday, dilaaga noqday, midna uu noqday dictoorka. farqiba u dhaxeeyay, wax farqi u dhaxeeyay labadooda caqli iyo nuurka ka dhex baxay. marka waxa lagu leeyahay dhiirigelintu gabigeeduba waxay wax ka tartaa dadka caqliyada leyd ka dhex baxayaan. ha isku daalin qof noocaas hadda aragtid. dadku way kala duwan yihiin. qof hadda aragtid qorax wadwalaya, mid bas aan soconaya, mid wax uu sameeyay, mid wax riixaya, mid fakeraya. qofkaas waa qof leyd ka dhex baxaya. haddaad doonaysa inaad cid tala ku darsato, kaa tala ku darso, laakiin walaalkaaga iska jiifa, fadlan faraha ka qaad, waxba kama bedeli kartid. waayo doonistii iyo raqbadii iyo rabitaankii isaga laga rabay in uu la yimaado male. haddii uuna lahaynna waa ku daalisa. waxyaabaha uu taro waxaa kamid ah in uu cusbooneysiiyo oo dardargeliyo nafteena. dhiirigelintu inay cusbooneyso, dardargeliso. that's why baa abaalmarinta iyo kan iyo kan iyo kan loo abuuray oo loo sameeyey. sidoo kaleeto in ay naga daweyso, ka hortagto guulalooga, walaaca inay soo wajaha ay dhiirigelintu qayb ka noqotaa. waxay kaleeto qayb ka noqotaa in qofku uu cabsida iyo warwarka uu ka qabo inuu fashilmo in ay ka hortagto. shaqada in aan nabcaano oo kale, waayo qofka shaqo kastoo adag oo lagu dhiibo waxaad aaminsan tahay in aad wax ku baranayso, aad ku horumarayso. laakiin haddii aadan leydkaa lahayn, iftiinkaa caqligaaga lahayn, oo dhiirigelin aadan qabin, mid guda iyo mid bannaan, caqabad unbaad u arkaysaa. sida waxaa ugu muhiimsan oo kale hindisaad inaan la nimaadno, in aan wax alifno, in aan hal abuur yeelano. dhiirigelinta iyadana waa ka qayb, dhiirigelinta keenta. sidoo kale in aynu ka gaar noqono dadka, ayadana dhiirigelinta keenta. tusaale in 10 qof ay meel soo istaagaan, 10 ragaba dheh, 9 kamid suud madow bay xireen, mid kamid suud cad buu xireen. marka ugu horeysa sawirka aragtid, imagine suurayso waxa markiiba indhahaaga ku dhacaya oo indhahaaga soo jiidanaya qofka suudka cad xiran. waxaad dhahaysaa 9kan waa isku mid, kan maxaa suudka cad loogu xiray? ay isweydiinaysaa waayo qofkan suudka cad xiran yahay, bal isweydiinaysaa. markaas waxa lagu sheegayaa qofkan waa hebel.
okay ama waa hebla tusaale waxaa soo qaadanay rag waa hebel qofkan ayaa lagu leeyahay this mean tamayuska iyo inaad special noqoto aad dadka ka gaar noqoto aad dadka bii'adaada ku nool iyo dadka maxaa ku dhahdaa normalka ku nool caadi ahaanta ku nool aad ka bedelnaatid waa mid ka mid ah faa'iidooyinka dhiirigelinta ay nafteena u leedahay ugu dambeyntii alle muxuu ka yidhi haddaba dhiirigelinta mid bini aadamku iska keeneenba ama iska barteen maya dabcan dhiirigelinta waa wax alla abuuray oo alle uu sameeyey oo asmaa alxusnaa ka mid ah oo qur-aankiisa intuu doono uu kaga hadlay jannada ilaahay wuxuu u abuuray dhiirigelin darteed haddaad ogeed iyo haddaadan ogeynba daas miin buu ilaahay mar walba wuxuu yidhaahdaa ina aladiina aamanuu wacamilu الصaalixaat inaa laa nudiicu ajra man axsana camala ina aladiina aamanuu wacamilu الصaalixaat inaa laa nudiicu ajra man axsana camala yacni kuwii alla rumeeyey hawsha wanaagsan qabtay wanaagga sameeyey wanaagga falay annagu marnaba ma dayacno ajarka qofka waxa wanaagsan sameeya weligan ma dayacno that's mean marar badan buu ilaahay aan la tirin karin buu kaga hadlayaa abaalmarinta dhiirigelinta maxaan ku idhaahdaaye qur-aankiisa faman yacmal midqaala daratin khayran yara marka uu leeyahay يعني انت الا او خير اهدي اسميسد that's mean يعني انت الا او خير اهدي اسميسد انت الا او خير اديغنا abaalmarin abadiga helaysa waka ilaahay leh waxaan arkaynaa wax kasta oo maxaa ku ilaahdaaye muhiim ah inuu ilaahay qur-aankiisa kaga sheekeeyay ama uu isagu ina baray ayaad arkaysaa markuu alle ina leeyahay man jaa bilxasanati falahu 10 amhaaliha man jaa bilxasanati falahu 10 amhaaliha hal xasana haddii aad samaysid waxaad leedahay 10 u dhiganta ayaad leedahay karadu maamulaha ku dhaho haddii aad 1% kusoo kordhisid kambanigayga 10% baan ku siinayaa see noqonayd awoodaada shaqo iyo dhiirigelintaada subxaanallah laakiin bini aadan taa lagama helo alle keliya taa laga helaa bini aadan taa lagama helo alle keliya taa laga helaa yacni marka aan isku soo wada duuduubno alle isagaan ka baranay dhiirigelinta isagaana sameeya isagayna tahay mid ka mid ah waxyaabaha uu koonkan uu ku dhaqo alle marka asmaa alxusnaa ama magacyadiisa aan eegno sharafta leh waxaa ka mid ah razaaq fataax muqiif raxiim raxmaan yacni intaasoo dhan baan ahay marka aad badbaado u baahatid yaa muqiif idheh marka aad u baahatid raxmad iyo inaan kuu gargaaro yaa raxmaan idheh yaa raxiim idheh marka aad u baahatid irsaaqad yaa fataax yaa razaaq idheh marka aad ka baqdid in ceebtaadu bini aadamku ay asturi waayeen yaa saatir idheh ya yacni intaa yaa waduud yacni magacyada alleh ayaa wada dhiirigelina oo ay ka buuxdaa igu yar aan aniguna bedelkeeda ku siiye ismiin dhiirigelin marka dhiirigelintu waa wax ka mid ah waxyaabaha ugu quruxda badan ugu macaan ilaahay bini aadankiisa uu sameeyey ilaahay bini aadankiisa waa kale jinniga insiga uma abuurin ilaa inay caabudaan maahan ya waan ku khasbanay inay ilaahay caabudno laakiin waa inoo dhiirigelinayaa waay uu janno inoo siinayaa waay uu raxmad inoo siinaya waay inoo irsaaqayaa waay awlaad inoo siinaya waay uu hanti inoo siinaya waay uu adduunka dhan inaga inoogu sameeya waay inagoo maalin kasta qaldanna markaan u nimaadno aan gamca u taagno dhahno yaa raxmaan uu inoo cafinaya yaa qafuur yaa raxiim markaan dhahno waay uu leeyahay waan naxariistaa waan dembi dhaafaa keliya idheh yaa qafuur waay toobadkeeno saa idhe waay inoo leeyahay wuu awoodaa in aan ku qasbanaano in aan caabudno waxaasoo dhan waxaa weeyaan raxmaannimada uu sheegay iyo awoodda dhiirigelinta la-aanteed insaan ilaahay wuxuu ogaa inaan waxba sameeyeen laakiin jannaa lagu siinayaa ama waa lagu cadaabayaa markii lanagu yeri lanagu goodiyey waxaa timi inaynu markaa aan la nimaadno oo aan shaqaysano keena ilaahay ku ilhaamiyo intaas waxaan kusoo koobayaa
حلقة أود الإرجلنت إنه لش إنسان كأنت بتبقى كل مدونة حلقة لمدة وحنت كجتليا سداس ينبت قليو رمضان كريم عن أمان الله رمضان مبارك.